madaxweynaha dowladda Puntland mudane Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa xilli hore sheegay inuu ilaalinayo xorriyadda hadalka una ku ilaalinayo dastuurka. Waxa uu warbixin inoo diyaariyay arrintaas la xiriirta wariyaheena Maxamuud Cawmaade. madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa waxa uu waraysi hore u bixiyay ku sheegay inuu shakhsiyan ilaalinayo xaqa ay leedahay xorriyadda saxaafaddu. waxaanu sidoo kale sheegay inuu ilaalin doono dastuurka Puntland iyo sidoo kale xorriyadda hadalka oo isna uu qeexayo isla dastuurku. waxaana waraysigani qayb ka mid ah aanu dib uga soo saarnay kaydka telefishinka Somali Channel. anu waxaan ku ka imid wadan dimuqraasiyada oo dadku madaxweynaha lagu qabsado wax yar oo midqaala diratin oo aadan islahayn waa wax weyn marka in saxaafadu xor tahay in dhaliisho la tilmaami karo in dadku kula hadli karaan in aad ogolaato sixitaan waa dowladnimada ka mid tahay yani nidaamka dawliga ah oo ku soo koray anigu aan ku barbaaray wax ku bartay ayaa saa u shaqeynaya dimuqraasiyad dhab ah xor ah dadku usan cidna ka baqinin madaxweynaha wixii la doon laga sheegi karo sax iyo khaladba la oran karo loona bereeri karo ayaan ku soo koray waxaan ku soo bartay marka waan aaminsanahay walaalle uma arko hadda sida dadka qaarkood u arkaan haddii wax laga sheego in qabiil wax laga sheegayo haddii wax laga sheego in qoys wax laga sheegayo no waxa taa public figure baa tahay dhaliisho waa lagu soo jeedinayaa constructive criticism waxa weeyaan yani eedayn ku dhisan sharci iyo jiritaan waa inaad qaadataa anigu dabcan qof Puntland citizen ah ama dhacayso in loo xiro fikirkiisa siyaasiga iyo fikirkiisa shakhsiga mid waa ballan qaadi in loo xireynin aan lagu xiyeeleynaynin anse dadku ay yeeshaan platform dhab ah oo ay fikirkooda ku gudbiyaan wali waxaan rabnaa in TV-yada iyo raadiyoyaasha dawladdu ay leedahay kii hadda مثلا dowladda Trump noogu deeqday waqti aan ra'iisul wasaaraha ay noogu deeqday in fakarka xorta oo shacbigu ay ka baxaan in ururada bulshada aan soo xidhay civil society-ga ha noqdaan dhalinyaro haween ganacsato maxaa la yiraahdaa culamaa u diin oday dhaqameed in ay fikirkooda dhiibi karaan sababta bulshada taa weeye waa focus groups-kaas dadkaas bay ka kooban tahay bulshadu marka urur ahaan shakhsi ahaan gobol ahaan inay u gudbisan karaan fikirkooda si xor ah wixii xunna u sheegi karaan u tilmaami karaan wixii saxana ay u boorin karaan طبعا waa taan sheegay waxa weeye dastuurka waan qoranay laakiin dastuur baan leenahay dastuurka in la raaco weeye waan in la dhowro dastuurka sababta hadda u soo qaban example-ka wuxuu ahaa waxa weeye min laba la isku heli karo inaan yiraahdo dastuurkii federaalkana waa la bilaqaystay kii Puntland ku dhaqmay ana bilaqaysanaya ma dhacay wax fiican ma marka waxaan baahanahay dastuurku marka leeyahay bilowgii hadalkayga aan lahaa sharcigu waa inuu qofka ka sareeyaa isku sina u qabtaa dalka waxa weeye laguma dhaqmo Puntland dastuur waxa weeye shakhsiga isaga fikirkiisa wixii ka soo baxa maalinta uu ku seexdo uu ku soo tooso ayaa lagu dhaqmaa wax wanaagsan ma marka dastuurku markii lagu dhaqmo anigana madaxweynahan awoodeeda uu xadidaya ku awoodooda lagu tumanaya ama ha noqdaan xildhibaano ama ha noqdo xisaabiye ama hanti dhowrena waa u difaaciya marka dastuurku wuxuu u baahan yahay ku dhaqan wuxuu u baahan yahay in la dhowro isaga laftigiisa wuxuu u baahan yahay inuu adiga ku dhowro sababta fiiri walaalkiis haddii dastuur lagu dhaqmi lahaa qofka adiga saxta waa nabad gelaysaa markii dastuurka aad dabcan inaad wax samayso aad eegto dastuurka aad tiraahdo wallahi qodobkaas jibinaysaa oo aad dib uga gurato adigiina waad dhowrsoomaysaa oo yani qof dhowrsan baad noqonaysaa ma garatay yani xaaraan baad ka dhowrtoomaysaa oo yani ka dhowrsanaanaysaa tuuganimaad ka dhowrsanaanaysaa eex baad ka dhowrsanaanaysaa qabyaalad baad ka dhowrsanaanaysaa cadaalad darro inaad samaysaad ka dhowrsanaanaysaa ma garatay jawfal qof bini aadan oo aakhiradii yani aakhirada aad dambi ku gasho inaad dhibaataysaad ka dhowrsanaanaysaa marka dastuurka fiiri inaad dhowrtaahi haddaad dhowrto isna waa ku dhowraya waraysigani uu madaxweynuhu ku qeexayay ilaalinta xaqa saxaafadda iyo sidoo kale dastuurka ayaa waxa uu ahaa waraysi uu bixiyey ka hor intii aan la xidhin wariye jaamac yuusuf jaamac dabaraani oo maalintii shanaad xabsiga dhexe ee magaalada Garowe si sharci darro ugu xidhan. Maxamed Faarax Umaade, Somali Channel, Hargeysa.